Neef iyo Neeli waa mataanaha la yiraahdo Craniopagus oo ah kuwa madaxa isaga dhagan. Dhaliyadooda ayaa ka dhigan inaysan ku soo kala harin caloosha oo ay madaxa isaga dhagan yihiin. Kaliya 6% ayaa ah mataanaha ku dhasha Craniopagus dunida oo dhan. Iyaguna waxay ka mid yihiin kuwa dhifka iyo naadirka ah ee la soo wariyo. Jirkeenu waa kala reeban yahay, laakiin waxaynu isaga dhagannahay madaxyada. Waxaynu nahay kala maskax, taas oo ka dhigan inuusan qofkeenna akhrin karin qofka kale maskaxdiisa. Xataa anigu ma doonayo inaan ogaado waxa Shafiina ay ka fikirayso. Waxaan leeyahay maladayda goonida ah. Waxay tani la micno tahay in qof bagaarkiisa uu wax u qabsan karo sida socodka iyo hadalka. Midkeen naga mida ayaa marka hore ilkaha cadaysta, kadibna waxaa ku xigsada midka kale. Hadda oo ay ku nool yihiin Netherland, mataanuhu waxay nolosha ku bilaabeen duruuf aad uga duwan midii hore. Waxaanu ku dhalanay Suriname oo dhacda Koonfurta Ameerika. Hooyadayna waxay markii ay fooshu qabatay ogaatay inay dhali rabto mataano Siamese ah. Markii la dhalayna dhabtii ma ahayn mid wacan. Dadku waxay bilaabeen inay aad uga fogaadaan ama durgaan qoyskeena, iyaga oo xaaladda ay ku dhasheen ku salaynaya sixirka voodoo. Walaaladay waxay yimaadeen dalka Holland iyaga oo aad u da'yar, waayo waxaa muuqatay suuragalnimo ah in la kala reebi karo. Waana sida ay waalidiinteenu doonayeen. Waxay dhabtii la rabeen inay helaan nolol qurux badan. Markii baaritaan lagu sameeyay, waxaa la ogaaday in mataanuhu ay wadaagaan xidid aad muhiim u ah oo dhinaca madaxa ku yaala, kaas oo diidaya in la kala reebo. Waxay wadaageen hal xidid oo noloshooda oo dhan muhiim u ah. Haddii la doono in la kala reebana, waa in la jaraa. Haddii la jarana, waxaa laga yaabaa inaad soo xabaasho. Innaguna ma ahayn kuwa doonaya midaas. Hadda oo ay jiraan 18 sano, mataanahan waxay la qabsadeen xaaladda ay ku dhasheen, iyaga oo xoogaa walaac ah dareemaya. Ma aqaan meeshuu yaal remote control-ka. Markaad dhaqaaqaysaan, midkiin miyaa hoggaanka u haynaya midka kale? Maya, isku mid baan nahay. Inkasta oo Shaneeva ay moodo inay iyadu hoggaanka ii hayso. Kaliya tani waa xaalad aanu la qabsanay. Waxaanu sidan oo kale iskula socon jirnay nolosheenna oo dhan. Laakiin inaan u soo helo remote control-ka ay ii warsanayso waa igu dhib. Biladayaha ama muraayadda maxaad u adeegsataan? Waxaan u adeegsanaa si aan iskula daawano telefishinka. Marka aan helno remote-ka, waxaan u arkaa inay yihiin walaalahayga iga yaryar. Waana sida ay ahayd mar walba. Aad waa inaan isku dhowrnaa si joogto ah. Taasina waxoogaa waa nagu yara adag tahay. Waxaad rabtaa inaad samayso waxyaabo ku gaar ah, laakiin qofkeen wuxuu ilaalinayaa dareenka qofka kale. Waqti uma haysid aad ku noolaatid biri. Marka aan banaanka u baxno, dadku way nagu mashquulaan. Ma doonin dhabtii inaan banaanka u wadno. Dadku kama joojinayaan eegmada had iyo jeer. Hal tusaale oo aan xusuusto waxay ahayd markii aniga iyo iyaga aan aad u yarayn. Banaanka ayaynu isla aadi jirnay. Dadkuna waxayna weydiin jireen su'aal ah, maxay waalidkaagu isaga soo xaaqi waayeen ilmahan? Waxayna naga bixin jireen faallooyin meel ka dhac leh, iyaga oo aan wax xushmad ah noo muujinaynin. Rosiane runtii wayna gargaartaa. Dadku marka ay xadkabax nooga falceliyaan, waxay isu taagtaa difaaciddeena. Waanu jecelnahay, aad baanu u jecelnahay. Hadda waxaan leenahay bar YouTube ah, dadkuna way nagala socon karaan. Maalinna way joojin doonaan mashquulka badan, iyaga oo ogaan doona inaan nahay gabdho dahabi ah. Annagu ma nihin gabdho naafa ah. Waad arki kartaa muuqaaladeena iyo sawiradeena. Waxaan arkaynaa faallada ay naga bixiyaan. Wayna fiican tahay inaysan si xun nooga falcelinayn oo kaliya. Waa laba qof oo kala leh shakhsiyad kala duwan. Waa laba gabdhood oo kala duwan. Waana ku faraxsanahay inay dunida tusiyaan midaas. Looma filayn inay noolaan doonaan 10 sano kadib, laakiin way ka gudbeen da'daas oo hadda waxay jiraan 18 sano. Dib ayaad u eegaysaa noloshaada, kadibna waxaad leedahay waaw, yaa saadaalin karay markii la idin dhalayay inaad 18 jirsan doontaan. Qofna waxay ila tahay wax badan ayay ku soo guuleysteen, waxayna u koreen sida qof caadi ah. Waxaan u malaynayaa in mustaqbalkuna uu yahay mid togan. Ma jeclaan lahayn in la kala sooco marba haddii aan caafimaad qabno. Waana midda noogu muhiimsan. Faa'iidada kale ee dheeriga ahna waa marka la gaaro dhalashadeena oo waxaynu helnaa laba jibaar hadiyado ah.